السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن صاحبيال كسو دوادا شيكال جميد الله مقع بحديها دريمين جيريدا وقيبتي كوباد قياستي 4 كيلومتر مركان وجرنا سلدقي عدوغا أيو مسؤولكين وتي أمر كوبحيين أنو يستاغنو أبان دوليه عيدان كايا شقاد اللوريغي دقيقة ضير أيا نسوغين أنوك عيدان كامد oo gadaal jirtay qaab difaac oo kamid hababkii soo jireenka ahaa ee astaanta maska ayaanu u fadhinaa waanu aamusanahay iyadoon amar lagu bixinin malaha nafti hore kastaba keligii ayaa isla sheekaysanaya mid natiijada weerarkan u dorosaya iyo mid wax kale ka fakarayaba waxayse u badan tahay in ay ku mashquulsan yihiin marxaladan lagu sugan yahay iyo siday ku dambeyn doonto markii laga reebay xalano oo gadaasheeda fadhiya isagu wadhaamahayo garabka midigintu iga taabtay ayuu cod hoos igula xanshaashaqay markaan dhagta horsadayna wuxuu mar kale iigu celiyay deeqa qoordheer reerkoodii gurigii aynu gamashiga ku soo marnay miyay ka guureen aniga oo aan weli u jawaabin ayaan gadaal ka maqlay jaanqaad iyo assalaamu calaykum ku aad waa abaanduulihii oo khudbad gaaban oo guubaabo wacyi amar goodi tooh iyo talabixin isugu jirta soo jeedinaya faahfaahinta khariiradii dagaalka oo horey noogu qeexnaydna raaciyay 22 inoo qabta ayuu ku soo koobay koox walba waxaa hor fadhiya wiil hoogii u qornaa qoriga isna lagu hoogay ee silsilada jiita Girinof taliya kooxeed kasta waxaa lagu amray in uu dhaqaajiyo ciidanka uu horjoogaha ka yahay qofna qof kale lama hadlayo qaraxa xabadda inta ka horeysa naxdinta waa laga wada siman yahay xasuusta nafti hore kasta xilliga waxaa ku soo xaadiraysa hadba cidii ku weynay marka aniga naxdinta hooyaday gacalo wax iiga daran ma jirto waana qodobka keli ee aan nolosha u jecelahay i rumayso ma jirto sabab kale oo aan u jecelahay nafta talow sidee bay noqon doontaa haddaad halkan ku shahiido miyay sii noolaan doontaa mise nolosha lafteeda ayaa silcin doonta fiicnaan lahaydaa inaan looba sheegin geeridayda xabsida aan ka qabo dhimashada waxaa ka badan tan aan ka qabo walwalkeeda hooyaday dahabooy waajibaad dushaydan daacadnimo u fuliyee ha dareemin geerida go'aankii dabka loo boobay ayaa ahaa dhicinta ciidda hooyo ama la wada dhinto wuxuu nafti hore kastaba maanka ku hayaa tixdii shihiid dhagacade laba ciidan mid u maan rabaa inaan la ciida oo ay sii weheliso meerisyadii shihiid jaamaclabi nafta hura intii soo hadhaa libin ha haysteene hayaankii dheeraayaan soo gallay mahalkan ayuu ku egyahay garan maayo waxaanse hubaa inuuna jirin nin ka fakari karaa wax aan xaaladan lagu jiro ahayn si kadis ayaan dhimbiilo rasaas oo korkayga maraya u arkay iyo dhawaaq kulul oo madaxa saaman la iga jiiday wax cadaab la moodo oo ka soo baxaya difaaca cadowga oo qiyaas ahaan ii jira 80 tallaabo ayaa ay hareenalay waayoolbaad oo carbiskii hore ayaan ku bartay boggaa lagu wada siqayaa wiilkii tusbaxa weynaa ee aan qoortiisa haybaha weligii ka furin la armiga afuuf cod la moodo cirsan karyeer sayax jooga ayuu raaciyey gumaca raac nafti hore kastaba wuxuu isku daray kicid halhaleel qoriga oo uu daarka ka qaado digri hadduu ku soo galay xarbiga aniyo duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay gadaasheeda waxaan ka maqlaa codkii abaanduulaha oo dananaya waryaha way ciidanka la sinaan qaado allaa weyn ninkii aamina awood leh ayaan dhanka midig ka maqlay saaxiibkay nafti hore illeeloo iga barbar dagaalamaya guushu gacanta alle ayay ku jirtaa hase ahaatee dadaal iyo adkaysi ayay u baahan tahay geesiguna waa ninka samra daqiiqadaha yar ee soo foodle nafti hore kasta wuxuu ogyahay kartida iyo geylankiisu inuu qayb ka yahay guusha ciidankiisa sidaas darteed tabihii iyo xeeladihii dagaalka ee horey loogu carbiyey ragga qaarkii dheeri ayay ku dareen oo waxay iska baadhbaadhayaan taba ka heer sarreeya codka rasaasta hadhbeeshe mar waxay kuula ekaan saloo la dubayo uurada iyo caydhka baaruudda ayaan ka duwanayn dhadada roobka waa markii aan soo xasuustay dagaalkii ugu dambeeyey ee Tansaaniya ku xorowday ee maaji oo micnaheedu yahay roob adaa fasiran jugta baasuukaha gariirka bamka iyo reenka cinjirlaha afdhuubka Girinofka intaas oo isbiirsaday ayaa wixii ka soo haray ka dhigay dhimbiilayaal aan jabaq lahayn marka laga reebo dananka laarmiga si walba looga dhex maqlo ee dagaalgeliyaha nafti wadarka waryaha way xabadda ka fadhiiso talow isaga naftiisii ma kuwan uu amraya u haya waxa kaliya aan ku xaqiiqsanayo inuu qorigaygu dhacayo waa dhimbiilaha rasaasta ee sida hilaaca afkiisa ka baxaya ninkan waalan maxay jabhadu noo soo raacisay miyaan dagaalamaa mise isaga ayaan xajiya ayuu ku cabanayaa luungo oo suufigii shimbir ahaa la jirraban
hadduu sii daayana difaaca cadowga ayuu isqartaagi. Cilcilowgii waa beri ayaa soo ifbaxay, ninkii iyo geedkii ayaa la kala gartay. waxay isdariijiyaanba marka nafta u run sheegtay. wiilal dhiigooda u hamuum qaba ayaa difaaca ugu daatay. nafi orod bay kugu aamintaa, waa kuwa dhabarka jeediyey. maxaa xigi doona? la soco qaybta labaad.